xaruntan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu soo gali kari waayay gudoomiyihii naafada qaranka Soomaaliyeed wasaaraddan intaan joogana ilaahay idinkiisa waxaan ka shaqeyn doonaa howlaha ugu adag oo qaban doona ka mid noqon doona sidaynu xuquuqda ay leeyihiin oo dhabta ah inay xafiisyada gali karaan inay shaqeyn karaan inay meel kasta oo ummadda daneehda lagu qabanayo ay tagaan ay xuquuq u helaan Soomaaliyana waxa lagu tilmaamaa dalalka ugu naafada badan waynu ognahay dal dhibaato iyo dagaal muddo dheer ku soo jiray caalamka maanta naafada ka jirta waxa lagu tilmaamaa 15% inaan markii ugu horeysay oo xilkaan qabto idin soo hor istaago maanta iyo intaan xildhibaanka noqdayba anoo idinkaga mahadcelinaya 100% waajibka qaran ee culus ee aad maanta gudateen oo ah inaynu sharci u sameeyno naafada qaranka Soomaaliyeed mudane marwey caalamka maanta naafada ka jirta waxa lagu tilmaamaa 15% Soomaaliyana waxa lagu tilmaamaa dalalka ugu naafada badan waynu ognahay dal dhibaato iyo dagaal muddo dheer ku soo jiray sharciga maanta aan sixiseen wuxuu furo u noqon doonaa xuquuqdooda iyo helitaanka waxay naga mudan yihiin naafadaas intooda badan waxay u dhaawacmeen oo u naafoobeen difaaca dalkan iyo danihiisa tixgelinta maanta siiseenna waa maalin taariikh ku leh qarannimada Soomaaliyeed iyo abaal u celinta inta dalka dhibaatadu u soo gaartay waxa maantayto aad ii taabtay qalbigayga markay soo gali internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah